qaaliga waadi salaamay meel walba adduunka joogtaan waa walaashiin Najmo MBR kusoo dhawaada MBR qurux dumar halka diga daawanaysaan waa MBR qurux dumar channel aniguna de waa Najmo MBR waxaan jeclaystay maadaama aad maartay TikTok aad igu soo push garaysaa inaan YouTube soo furto inaan caawa arrin yar oo xasaasi ah inaan halkan ka soo jeediyo oo u baahanahay inaynu iska wacyi gelino hadaynu nahay gabdha Soomaaliyeed hadaba maxay tahay arrinta iska wacyi gelinayno intiina badan waad ugu taageeri doontaan intiina badanna waad iiga hor imaani doontaan hadaad dabeecadahan leedahay ama dhaqanka noocan aad leedahay iska daa noloshaada dhan ayay xirxirayaan horumar dhanna ma sameyn kartid go'aan fara badanna ma qaadan kartid waxaad tahay qof ku jiro jeel nafsiyan ah hadaba maxay tahay waxa aad iska daynaysaa hadaad ku jirtid oo isku daydaysid inaad ka baxdid ila soco number 1 mid u koobaad inaad u noolaatid qof bilaadan ah inaad u noolaatid qof bilaadan ah waxayna ku tusinayaa noloshaada dhan waxaad u burburinaysaa qof bilaadan ah mar walba waxaad iska ilaalisaa maxaad sheegataa cadow waxaad adigu iska dhaadhacsiisay wax yar tusaalo waxa laga yaabaa inuu maanta nin xun ku qabo taariikh salaad ah ama aragtay ku ixtiraameeyeen ku respect gareyneen ku biilaneen ku dhaqaneen ku caynayo ku aflagaadeeyo ku dilay wax kasta kugu subinayo hada ninka asiga aha kama dacwoon kartid jacayl aad asaga u qabtana ma aha wad qof aad dhibsanayso laakiinse waxaad ka cararaysaa cambaradii inay ku maqasho caasha ay maqlaysa cambara ay maqlaysa hiblaaya ay maqlaysa cambaradii kale ay maqlayso hiblaayada kale ay maqlayso tii cadowgiiha cadowgeega u jawaa hadii la maqlo ana cadow baan leeyahay ma ogtahay waxa si waxba kama jiraan isku day inaad noloshaadu xoreysid aad u noolaatid noloshan adiga iska leh ku raaxayso noloshaada qof kula leh mala dhibka aad ku jirtid rafaadka aad ku jirtid murugada aad ku jirtid oohinta aad ku jirtid adigu bay ku dhibaysaa bili aadan baa tahay you know one day one time waa dhimanaysaa cimrigaaga intuu jiro kor hadduu ilaahay xitaa 200 sano ku gaarsiy 60 sano hadaa gaartid cimrigaagu xoogi baa kaasii baxayo waxaad iska noqonaysaa qof waayeelo meel iska jiifo inta aad nooshahay ku cibaadayso cimrigaaga ku raaxaysan noloshaada ha u noolaanin qof bili aadan wax cadow aa leedahayna male cambaraa waxba kaa gelin heblaayo kalaa wax kaa gelin nin kalaa waxba kaa gelin u noolow noloshaadu siday tahay ku faraxsano midda kale aad iyo aad iiga yaabisa waxay tahay gabdhaha Soomaalidu inay yihiin gabdho ayagu isku nool ayagu isku xoog badan isku feeraweyn hadaan tusaale yar idin tusiyo waxaad arkaysaa gabar walaasha ee maxyar tilaabo intaas la eg qaaday oo horumar sameynayso ama wax yar intaas la eg horumar sameynayso waxaad u qaadaysaa cadowtinimo waxaad uga hadlaysaa si negativity ah waxyaabaha ay sameynayso waxyaabaha ay qabanayso waxaad isku dayaysaa inaad uga hadashid si qaldan ad ma aragtay waxaan waa caadi waxaan waa la qaban karaa iyo hadallo noocaas iyo hadallo xun inaad ka gaabsatid qofkii aad shalay isku wanaagsaneedeen waxaasi waa kalsooni daro adiga kugu jirto qofka isku kalsoon mar walba wuxuu la saaxiibaa ama wuxuu ku farxaa qofka asaga ka sareeyo ama qofka horumar ka sameeyo ama qofka aqooniyaanka ah ayuu mar walba la saaxiibaayo la sheekaystayo la socdaa okay midda kale waxay tahay aan aadka ugu yaabaan rabo inaad iska dhiirigelino waxay tahay nin baa ku qabo ama nin baad la sheekaysataa gabar ayuu shukaansanaya mise gabar baad ku arkaysaa abababa ninkii baad ka korboodaysaa gabadhi baad aadaysaa oo gabadhi baad boodaysaa gabadhi islaameed baad ku haadaysaa ood guruun u qaadanaysaa oo iyadii baad caynaysaa iyadii baad dilaysaa iyadii baad daba cararaysaa waxaasoo kale waa kalsooni daro qofkan shilay sida adiga lagu shukaansaday ayaa loo shukaansaday waxba kaagama gelin gabadhaas iyada banaanka marayso qofka waxa kaala galay waa qofka adigu kula nolosha kula qaatay waxaad xaq u leedahay inaad qofkaas asaga ah hadaad wax ka dhahaysid iyo hadii kale inaad asaga ka dhahdid saddexdaas shay aan idin soo sheegay hadaad gabdha marxaladaha nooca ku jiro hadaad tahay walaali macaanay iska daa sababtoo ah mar walba way ku liidayaan arrimaha noocaas ah weligaana facaa ma gaaraysid farxadaadoo dhanna way duugan tahay noqo gabar isku kalsoon oo isku qanacsan independence woman ah oo madax banaan qof bili aadan aan u baahnayn illa Allah subhanahu wa ta'ala mooyee. Assalamu alaykum.